Serbia oo xulafo la Ruushka ayaa si qarsoodi ah wuxuu Shiinaha uga helay hubka lidka diyaaradaha taasoo muujinaysa awoodda Beijing ay ku leedahay Yurub. Wadamada reer galbeedka ayaa ka walaacsan diyaargarowgan ciidan ee uu samaynayo gobolkan oo ku soo aadaya xilli ay jilicsan tahay oo ay xasaasi tahay nabadda Yurub. Serbia waxay kobcinaysay hubkeeda sanadihii ugu dambeeyay iyada oo gacan ka helaysa Ruushka iyo Shiinaha oo ah laba cududood oo ay si istiraatiiji ah isu hayaan galbeedka. waxaa ka daran in dhammaan saddexdan wadan aanu midna aqoonsanayn qarannimada Kosovo oo ah gobol ka go'ay Serbia oo si iskiisa ugu dhawaaqay ka madax banaanida Serbia sanadkii 2008. warbaahinta iyo khubarada militariga ayaa laga soo xigtay helitaanka xog ah in 6 diyaaradood oo ah nooca ciidanka cirka Y-20 ee Shiinaha ay ka soo degeen gegida rayidka ee dabcan magaalada caasimadda ah ee wadanka Serbia. sida la sheegayna waxay sideen hanaanka HQ-22 oo ah difaacaha dhulka cir oo loo daabulay militariga Serbia. diyaaradaha xamuulka qaada ee ciidamada Shiinaha oo leh calaamado militari ayaa lagu sawiray garoonka diyaaradaha taasoo muujinaysa inay gacanta u geliyeen Ukraine hubkaasi culus oo muhiimka u ah. wasaaradda gaashaandhigga ee Serbia si degdeg ah ugama jawaabeen codsiga wakaaladda wararka AP oo arrintaani faalla ka weydiisay. hubkan lagu wareejiyay Serbia oo lasoo dulmariyay dhulka ugu yaraan 2 dal oo xubno ka ah NATO, Turki iyo Bulgaariya ayay khubaradu u arkeen mid muujinaysa sida Shiinaha uu u gaarayo caalamka oo dhan. muuqaalka dayuuradda Y-20 oo raxan u socda in lagu arko qalbiga qaaradda Yurub ayaa lafteedu arrin walaacinaysa galbeedka sida uu qorayo dabcan Warson, iyadoo uu falanqeeyaha ciidamada Serbia Alexander Radig uu sheegay in Shiinuhu ay sameeyeen muujin awoodeed oo lama taabtaan ah. madaxweynaha wadanka Serbia ayaa isna gudoomay hanaankan oo ah midka ridada dhexe ku sheegay mid kordhinaysa qabka Serbia isagoo sheegay in heshiiskan ay Shiinaha la galeen sanadkii 2019.